بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee aadan cad ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yiraahdo Madasha Tana Forum oo si gaar ah looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal mas'uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay'adaha caalami ah waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakameyn lahaa ama looga hortagi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaar ah ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dawladda Soomaaliyeed iyo waliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargoyn lahaa oo wadanka looga ciribtiri lahaa. shirka oo dhowr maalmood socon doona inta uu soconayo waxa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaar la yeelan doona mas'uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah uga hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya.